kaydka shidaalka wadamada adduunka ayaa isbarbardhig lagu sameeyay Soomaaliyana way ku jirtaa marka waxaan isla arki doonaa meesha ay ka gali doonto waxa lagu bilaabay Kenya waxay leedahay badhayn 300 oo kun oo fuusto oo kayd saliid cayriin ah hadday iibin lahaayeen waxay ka heli lahaayeen 22 milyan oo dollar marka barnaamijkan waxa la sameeyay 8 bilood ka hor saliidda cayriin waxay mareysay $75 iyo 84 senti haddii fuustadii loogu dhufto marka totalkeeda waxay noqonaysaa 22 milyan oo dollar haddii ay iibin lahaayeen kaydkooda saliidda cayriin waxay ku xijiyeen Ethiopia waxay leedahay badhayn 400 oo kun oo fuusto oo kayd saliid cayriin ah hadday iibin lahaayeen waxay ka heli lahaayeen 30 milyan oo dollar waa labadii wadan ee dariska nala ahaa fiiro gaar marka waa inaan u lahaano hay'aan siidayna marka waxay u soo hormariyeen labadii wadan ee dariska nala ahaa Marooka ay ku xijiyeen 4600 oo kun oo fuusto 45 milyan ka heli lahaayeen okay 1 milyan oo fuusto la gaaray waa Urdun wadamadan sidoo kale Taiwan oo maalinta ka hadlayna chips soo saada 2 milyan oo fuusto leeyihiin bidha wax kayd saliid cayriin ah Greek oo kale 10 milyan buu leeyahay bidha wax saliid cayriin gabigiisaba Tajikistan waa Asia ayaduna wadanka Hungary baa ka muuqda Israa'iil baa halkan ka muuqata hadeen 14 milyan bay leedahay wax 14 milyan oo fuusto leedahay ba gabigeeduba halkaas South Africa ayaduna ka muuqata okay Mauritania ayaa iyaduna halka ka muuqata Bangladesh 18 milyan oo fuusto leedahay bay dhaheen hadday iibin lahaayeen 2 bilyan iyo 100 milyan bay ka helaayeen oo dollar New Zealand Japan waa wadan awood dhaqaale xoog badan leh gabigiisu 44 milyan oo fuusto Faransiiska halkan ka muuqda waxba dhaamin Soomaaliya meesha ka gasho aan fiirino gabiini noqoto waxa la yaabtay ilaa hadda lama gaarin Ivory Coast iyo Poland iyo Jarmalka dhan waxa ku jirtay dhahan 125 milyan oo fuusto hadday iibin lahaayeen 8.6 billion dollar bay ka heli lahaayeen waa garta Cuba ayaduna meesha ka muuqata Netherlands iyo Philippines Myanmar iyo Spanish kiba ayaguna muuqda Yurub inteeda badanba waa wax badan oo kuma jiraanba wadanka Niger oo Afrika ah isaguna 145 milyan ayaa ka muuqata korba loo sii kacay DR Congo waa wadan ku yaala bartamaha Afrika 180 milyan Bahrain oo Carab ah 186 milyan Bahrain oo wada garanayna wadanka Cameroon iyo Belarus ayaguna waa kaas kora loo dalac marka wadamo xoogaa shidaalkooda badan yahay 240 milyan oo fuusto 18 bilyan oo dollar bay ka heli lahaayeen waa Bolivia Thailand baa meesha ka muuqata ayaduna wadanka kalluunka naga dhameeyay Turkiga oo wadan muhiim noo ah 366 milyan oo fuusto wayaan kaydkiisa saliid cayriin 27 bilyan oo dollar buu ka heli lahaa Tunisia iyo Ukraine waa isku area kuwaan Denmark Talyaanigi Yurub ayadu waa isku ag dhowdhowda wadanka Pakistan 540 milyan Pakistan waa wadanka ugu nolol hooseeya dhahan xagga qarashka lagu noolaan karo waxa laba soo gashay dhahan waa Masar دراسة أي سمي World Statistics okay
waxaa lagu sii dhowaanayaa aagga 1 bilyan oo fuusto in la soo saaro. Equatorial Guinea baa 1 bilyan يعني 1 bilyan fuusto inuu haysto oo kayd saliid ciiriina ka bilaabay. Chad 1.5 bilyan. Okay. Australia halka inooga muuqata waddan Soomaali badan ay jirto. 2.3 bilyan oo waddan kaliya waddan iyo qaarad ba ah. Uganda waddanka East Africa ku yaalay 2.6 bilyan fuusto baa ku jirta. 190 bilyan dollar bay ka helayeen. Suuriya ayaduna ka muuqata. Ingiriiskiiba halkan jooga asaguna 2.7 bilyan fuusto 202 bilyan oo dollar. Yemen waddankii dariskeenna ahaa 3.1 bilyan fuusto ku jirtay leeyihiin 232 bilyan oo dollar bay ka helayeen day iibiyaan. Masar baa ayaduna meesha ka muuqata 3.3 bilyan. Malaysia, Vietnam, waddankii Hindiya 4.6 bilyan baa ku jirta fuusto kayd shidaalina waa waddan qaarad camal ah. Suudaan 5.1 bilyan Suudaan ma sahlana 382 bilyan oo dollar bay ka helayeen. Cumaan iyo Mexico ayaguna ku sii xiga. Azerbaijan waddanka Asia ku yaalay ee Armenia dagaalka la geliyay waa dhaweyto ee dhulkiisa dib ugu soo ceshay 30 sano oo ka haystay. Okay, Angola iyo Norway iyo Ecuador kora loo sii dalacay meel sarsara malaha loo socdaa. Guyana lagu bilaabay 10 bilyan oo fuusto waddanka haysta ugu horeeya 750 bilyan oo dollar ka helayeen. Algeria iyaduna Afrika ah baa ku xisantay. Qatar waddankii Iraq qaniga ahaa ee 220 bilyan oo dollar ku bixinayay si uu martigeliyo koobka adduunka. Shiinihii baa ku xigsamay isaguna. waddanka Nigeria waa wadamada ugu kayd shidaal weyn Afrika. Mareykanka ku xigsamay Mareykanka 47 bilyan oo fuusto. Liibiya oo qani ah iyaduna waad garanaysaa. Ruushka 80 bilyan oo fuusto xaaladdu waa adkaatay. Imaaraadka oo dawladda qaniga ah. Kuwait waa 10 sano 10 waddan ugu horeeyay. Kuwait 110 bilyan bay leedahay. waana kaalinta toddobaad. Kaalinta lixaad waxay geliyeen Soomaaliya 111 bilyan oo fuusto oo shidaal ah. Baa kayd yani shidaal ma ahan waa saliid. sida waxa kala jira oil iyo fuel way kala duwan yihiin. Oil waa saliid ciiriin waxyaalo badan laga sameyn karo. Fuel waa marka final product uu yahay oo gaadiidka iyo qalabka loo isticmaalo. Oilku waxay leedahay cabir gaar ah oo fuustadiiba lagu cabiro. laakiin fuelka cabirkiisu wuu isbeddelaa habba container gaar ah lagu shubaa. Price go'aana adduunku uu ka leeyahay marba waxaan la yiraahdo oilku. marka waxa dhayn Soomaaliya waxa ku kaydsan wakaalinta lixaad. Mareykan, Kuwait, Imaaraat, Qatar waxaas way ka sarreysaa. wakaalinta lixaad lambar yani waddanka lixaad ugu kayd shidaal weyn adduunka oo dhan 111 bilyan oo fuusto. hadday iibin lahaayeen waxay ka heli lahaayeen bay dhaheen 8.3 trillion dollar. xisaabtuna qaab ku imaanaysa waa sidaan. calculatorka haddaan soo qaadano 111 bilyan oo fuusto markii la qorasaanay noqonaysaa haddii lagu dhufto 75.48 8.3 trillion dollar waa dhaqaale aad u culus.